Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo channelkeenii Monomad. Muuqaalka maanta aan idiin hayaa wuxuu ku saabsan yahay sidii uu ku bilowday dagaalkii labaad ee adduunku. Muddadii u dhaxaysay 1914 ilaa 1918 oo ahayd waqtigii uu socday dagaalkii koowaad ee dunidu, waxaa xasilooni darro weyni ka abuurantay qaaradda Yurub, taasoo masraxa ku soo dhaweysay inuu bilaabmo dagaal kale oo caalami ah, kaasoo noqday dagaalkii labaad ee dunida. Dagaalka labaad ee dunidu wuxuu bilaabmay 20 sano kadib dagaalkii koowaad ee dunida, wuxuu noqday dagaalkani mid ka khasaaray iyo burbur badan dhammaan dagaaladii soo maray dunida. Kacdoonkii dhanka awoodda ee dowladda Jarmalka oo markaasi dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan ahayd mid aan fadhiyin, Adolf Hitler oo ahaa hogaamiyihii ururkii Naasiyiinta ayaa shacabkii Jarmalka hubeeyey, waxaana heshiisyo istiraatijiyadeed la saxiixday waddamadii Talyaaniga iyo Jabaan si uu uga dhabeeyo qorshihiisii ahaa inuu dunida taladeeda maroorsado. Sanadku markuu ahaa 1939, hogaamiyahan mayalka adag ee Adolf Hitler ayaa weeraray dalka Poland. Weerarkan kooxdii Naasiyiintii Jarmalka ee uu hogaaminayay Adolf Hitler ay ku qaadeen waddanka Poland ayaa sababay in waddamada boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiisku ay ku dhawaaqaan dagaal ka dhana Germany, taasoo noqotay barbilowgii dagaalkii labaad ee adduunka. 6 sano ee soo socda, dagaalkani wuxuu sababsan doonaa nolosha dad aad u badan, wuxuu sidoo kale burburin doonaa dhul iyo hanti badan oo dunida inteeda badan ah. Tirada dadka ku naf waayay dagaalkan labaad ee dunida oo lagu qiyaaso 45 ilaa 60 milyan oo qof, waxaa ka mid ahaa dadkaasi 6 milyan oo qof oo Jews ah ama Yuhuuda oo lagu xasuuqay xeryihii ciidamadii Naasiyiinta. Xasuuqan ayaa qayb ka ahaa qorshihii la magac baxay Holocaust, kaasoo hogaamiyihii Adolf Hitler uu rabay inuu dadka Yuhuudda ah qaaradda Yurub kaga tirtiro. Carqaladihii uu ka tegay dagaalkii koowaad ee adduunku ayaa qaaradda Yurub ka dhigay mid aan xasiloonayn. Kadib markii uu dhammaaday dagaalkii koowaad ee dunidu, arrimo badan oo ahaa kuwo aan la xallin ayaa sabab u noqday inuu qarxo dagaalka labaad ee dunidu, gaar ahaan xasilooni darradii dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka jirtay waddanka Jarmalka. Sidoo kale, awooddii uu yeeshay hogaamiyihii xagjirka ahaa ee Adolf Hitler iyo xisbi siyaasadeedkiisii la odhan jiray National Socialist German Workers' Party oo loo soo gaabiyo NSDAP, luqadda Ingiriisigana la odhan jiray Nazi Party, ayaa iyaduna baasiinka kusii shubtay sidii uu qarxi lahaa dagaalka labaad ee adduunku. Taariikhdu markay ahayd 1933, Adolf Hitler ayaa noqday generaalkii ugu sarreeyay ee ciidamada Jarmalka. Sanad kadib markuu xukunka qabtay oo ku beegnayd sanadkii 1934, wuxuu maroorsaday awooddii dalka isagoo isku magacaabay Führer oo ah kelmad Jarmal loona micno ah The Supreme Leader, oo micnaheedu af Soomaali ahaan noqonayo hogaamiyihii ugu sarreeyay. Adolf Hitler ayaa aad u aaminsanaa aragtida ah in dadka Jarmalka u dhashay ay dadka kale ee dunida ka sarreeyaan, wuxuuna u bixiyay magaca ah Aryan. Hogaamiyahan mayalka adag ayaa aaminsanaa sida kaliya dadka Jarmalku nolol heer sarreysa ku heli karaan inay tahay dagaal, sidaasina ay dunida ugu fidi karaan. Bartamihii sanadkii 1930, wuxuu si hoose u bilaabay Adolf Hitler inuu ciidankii Jarmalka hubeeyo. Arrinkan ayaa ahaa mid ka hor imaanaya heshiiskii Versailles Treaty oo ahaa kii lagu heshiiyey si loo soo afjaro dagaalkii koowaad ee dunida. Hogaamiyahan mayalka adag ayaa sidoo kale heshiis isbahaysiya la saxiixday waddamada Talyaaniga iyo Jabaan, iyagoo ka dhan ahaa midoogii Sofiyeeti. Kadib heshiiskan isbahaysiga ee uu la galay waddamada Talyaaniga iyo Jabaan sanadkii 1938, Hitler wuxuu ciidamo u diray dalka Austria si uu u qabsado. Isla sanad kadibna wuxuu raaciyay oo ciidamadiisii geliyay waddankii la odhan jiray Czechoslovakia oo waqtigan kala ah laba dal oo la kala yidhaahdo Czech Republic iyo Slovakia. Weerarada Adolf Hitler ayaa waqtigaasi noqday kuwo aan la saadaalin karin. Dhinaca kale, waddanka Mareykanka iyo midoogii Sofiyeeti ayaa ahaa kuwo iyagu waqtigaasi ku mashquulsanaa arrimo dalalkooda gudihiisa ah. Sidoo kale, waddamada Faransiiska iyo boqortooyada Ingiriiska oo ahaa kuwii dhibaatooyinkii ugu badnaa la kulmay
intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunku ayaa ahaa kuwo aan wakhtigan wax xiiso ah u hayn inay dagaal qaadaan. dabayaaqadii sanadkii 1939kii Adolf Hitler iyo hogaamiyihii Midowgii Sofiyeeti Joseph Stalin ayaa wada saxiixday heshiiskii la magac baxay German-Soviet Non-Aggression Pact. heshiiskan ayaa walwal xooggan ka abuuray caasimadaha London iyo Paris. heshiiskan Hitler iyo Stalin ay galeen waxay ogolaadeen labada hogaamiye inaanay 10 sano ee soo socda wax dagaal militari ah iskaga hor imaan labadii quwadood ay kala hogaaminayeen waa Jarmalka iyo Midowgii Sofiyeeti. heshiiskan ay galeen labadan hogaamiye ayaa mid kasta dhinaciisa ka eeganayay dantiisa. dhinaca Stalin waa hogaamiyihii Midowga Sofiyeeti wuxuu heshiiskan u galay si uu dhinaca militariga dalkiisa uga dhiso. dhinaca kale Adolf Hitler oo lahaa qorshe fog inuu waddanka Poland qabsado ayaa heshiiskan u galay si aan wax dagaal ah ula kulmin Midowgii Sofiyeeti xilliga uu Poland weerarayo. weerarka Hitler uu ku doonayay inuu ku qabsado waddanka Poland ayaa mid ka mid ah sababaha ugu xooggan ee uu ku bilowday dagaalka labaad ee adduunku, maadaama wadamada boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiisku ay waddanka Poland u ballan qaadeen inay difaaci doonaan haddii weerar kaga yimaado dhinaca Jarmalka. heshiiskii Hitler uu la galay Joseph Stalin ayaa qorayay inaan ciidanka Hitler xilliga uu ku jiro qabashada waddanka Poland aanu laba jiho weerar kaga kala iman doonin, isla markaasina dhinaca ciidanka Hitler Poland ka soo weerara mooye dhinaca kale ay caawimaad ka heli doonaan ciidamadii Sofiyeetka oo uu hogaaminayay Joseph Stalin. sidaasina ay ugu sahlanaan doonto ciidanka Hitler inuu ku qabsado waddanka Poland. taariikhdu markay ahayd 1dii bishii 9aad 1939kii Hitler ayaa dhinaca galbeed kaga soo duulay waddanka Poland. 2 cisho kadib duulimaadkii Hitler, wadamada Faransiiska iyo Britain ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana waddanka Jarmalka. sidaasina waxaa ku bilowday dagaalkii labaad ee adduunka. taariikhdu markay ahayd 17kii bishii 9aad ciidamadii Sofiyeetka ayaa iyaguna dhinaca bari kaga soo duulay waddanka Poland. waddanka Poland ayaa markan labada dhinac duulimaadka kaga yimi ay sababtay in markiiba si fudud looga adkaado. bilowgii sanadkii 1940kii ciidankii Hitler iyo kuwii Sofiyeetka ayaa kala qaybsaday gacan ku haynta waddanka Poland. kala qaybsiga ciidanka Hitler iyo kuwa Stalin hogaaminaya ay kala qaybsadeen gacan ku haynta waddanka Poland ayaa si sir uga mid ahaa heshiiskii labadan hogaamiye galeen ka hor intaanu dagaalku bilaaban. kadib qabsashada Poland, ciidanka Midowga Sofiyeetku waxay ku runqaansadeen si ay u qabsan lahaayeen wadamadii la isku odhan jiray Baltic States ee Estonia, Latvia iyo Lithuania. waxay sidoo kale dagaal kaga adkaadeen ciidankii Finland oo iska caabin sameeyay dagaalkii la magac baxay Russo-Finnish War ay la galeen Midowga Sofiyeeti. dhinaca kale waxaa xagga badda dagaalo aad u ba'an iskaga hor yimi ciidamadii Jarmalka iyo kuwii Ingiriiska. gudshiyadii ciidanka Jarmalka ee la odhan jiray U-boats ayaa weerar ku ekeeyay doonyihii ganacsiga ee dalka Britain laga lahaa. 4tii bilood ugu horeysay dagaalkii labaad ee adduunka, gudshiyadii ciidanka Jarmalka ayaa qoosiyay in ka badan 100 doonyood oo dhinaca Britain laga lahaa. intaa waxaan kusoo koobaynaa qaybtii koowaad ee dagaalka labaad ee adduunka oo ku saabsanay sidii uu ku bilowday dagaalku iyo waxyaalihii sababay. haddii aad asxaabta Moonamar ka mid tahay, muuqaalka like saar, asxaabtaadana la wadaag. haddii aad channelkeena ku cusub tahayna si aad u hesho qaybta labaad, fadlan subscribe saar channelkeena, gambaleelkana furo. wixii aragti ahna qaybta fariimaha noogu dhaaf. mahadsanid.